kulanti wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale barnaamijka xog waran oo xiliyadan oo kale aad uga barateen telefishinka Universal daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij dhinaca siyaasadda aynu kaga hadalno inagoo ku falanqayna wararkii ugu dambeeyay siyaasadda geeska Afrika gaar ahaan dalka Soomaaliya daawadayaal toddobaadkan waxaynu diiradda ku saari doonaa barnaamijkeenan xog waran arrimo ku saabsan dhinaca ammaanka dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho tan iyo markii dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay si rasmi ah u sheegtay in magaalada Muqdisho ay kala wareegtay xogaga ururka Al-Shabaab waxaa si weyn u soo dhaweeyay tallaabadaasi dhammaan dadka Soomaalida meel kasto ay dunida ka joogaan waayo waxa ay muddo ku hamiyeen in magaalada Muqdisho hadii ay noqoto meel xasiloon oo nabadgelyo ka jirto dalka intiisa kalena ay nabadgelyadaasi si fudud ku gaari karto waxa soo baxayay warar kala duwan oo sheegaya in magaalada Muqdisho dawladdu marka ay gacanta ku dhigtay ay sii socdeen dagaalo inkastoo dawladda laftirkeedu ay qirtay mararkii dambe in meelo kamid ah magaalada Muqdisho ay ku harsanaayeen shabaab iyana mar kale dib looga saaray sida deegaanka Dayniile iyo meelo kale haddaba xaaladda guud ee ammaanka magaalada Muqdisho waa sidee dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in markii hore fakarkii ay ka qaateen magaalada Muqdisho inay xasiloon tahay oo ay nabadgelyo ka jirto in maanta fakarkaasi ay wax badan iska bedeleen taasi hadii ay jirto maxaa sababay in dadku ay fakar caynkaas qaataan iyadoo dad kale oo kamid ah dadka Soomaalidana ay aaminsan yihiin wali in wax badan laga qabtay ammaanka in yarna ay harsan tahay marka ugu dambeysana dawladdu ay ku guuleysan karto ammaanka guud ee dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho in ay xasiliso haddaba maxaa ka dhashay qaraxii ka dhacay tiyaatarka yaa iska lahaa mas'uuliyadda qaraxaasi inkastoo dawladda ay siyaabo kala duwan uga hadashay qaraxaasi iyo sida uu u dhacay kooxda Al-Shabaab oo sheegatay qaraxaasi ayaa mar kale ku celisay in qaraxaasi qaabka loo hirgeliyay ay ku gacan siiyeen mas'uuliyiin sare oo dawladda ka tirsan inkastoo aanay magacooda sheegin sida ay ka sheegeen idaacad afka Al-Shabaab ku hadasha oo ku taala sida ay yiraahdaan magaalada Muqdisho duleedkeeda haddaba maxaa keenay inaan waxba la iska weydiinin dadka rayidka gaar ahaan suxufiyiinta lagu dilo magaalada Muqdisho gaar ahaan dhinaca ay dawladdu ka taliso iyadoo dhowr wariye la dilay dawladduna ay sheegtay inay baaritaan sameynayso ilaa imikana aanu jirin cid maxkamad loo soo taagay dilka wariyeyaashaasi maxay tahay sababta loo beegsanayo wariyeyaasha ma waxaa laga soo horjeedaa in xaqiiqda dhabta ee ka jirta magaalada Muqdisho loo gudbiyo dadka Soomaaliyeed meel kasto ay dunida ka joogaan haddaba guud ahaan barnaamijkeena waxaynu ku eegaynaa xaaladda ammaanka magaalada Muqdisho xilligan ma tahay mid la isku haleyn karo mise waa mid dhibaato ay la kulmayaan dadkii taga Muqdisho barnaamijka waxa igala qayb qaadanaya oo stuudiyaha iyagu markaa inoogu martiya oo ila fadhiya Cornel Cabdullaahi Cabdi Maxamed oo ku magac dheer Dulle waxa uu kamid ahaa korneelka saraakiisha ciidanka nabad sugidda Soomaaliya haddaynu in yar taariikhdiisa dib ugu noqono korneelka 1983 ayuu sheegay inuu ka baxay kuliyadii ganacsiga iyo farsamada Soomaaliya xilalkii ugu waaweynaa ee nabad sugidda Soomaaliya uu soo qabtayna waxaanu ka xusi karnaa sanadii 1988 oo uu taliye ka noqday magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose 2007 ilaa 2008 waxa uu noqday taliye ku-xigeenka hoggaanka baarista waxaana uu si weyn iminka u taageersan yahay howlaha wanaagsan ee ay wado dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya waxaana uu rumaysan yahay in nabadgelyada magaalada Muqdisho xilligan ay tahay mid la isku haleyn karo waxa sidoo kale stuudiyaha inala fadhiya Cabdimaalik Yuusuf Maxamuud Cabdimaalik waa maamulaha guud ee shabakadda warbaahinta Shabeelle oo ka kooban idaacad iyo telefishin iyo website xaruntooduna tahay magaalada Muqdisho Cabdimaalik waxa uu si weyn u dhaliilsan yahay hanaanka nabadgelyada magaalada Muqdisho gaar ahaan qaabka ay ku dhaqmayaan hay'adaha nabadgelyada dawladda waxaana uu tuhun weyn ka qabaa in qaar kamid ah wariyaashii la dilay ay ku lug lahaayeen qaar kamid ah hay'adaha ammaanka waxa sidoo kale qadka telefoonka magaalada London isna ku jira General Ruug Cadaa oo ay Soomaalidu si weyn u garanayso General Ismaan Xaaji oo ku magac dheer Falco ayaa isna telefoonka kaga qayb qaadanaya
magaalada London ayuuna ku jiraa waana khabiir dhinaca ciidamada mudana ka soo shaqeeyay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa General Cismaan Falco oo isagu telefoonka ku jira General ma nala socotaa ma maqlaysaa si fiican waan sheegnay programka ama barnaamijkeenan caawa waxa uu ku saabsan yahay adigu ma u aragtaa magaalada Muqdisho xilligan inay tahay ammaankeeda meel la isku haleyn karo ama waxaad u aragtaa meel dhibaato amni ay ka jirto adiga maadaama aad tahay General ciidankii Soomaaliya khibradna u leh dhinaca ammaanka bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan u tacsiyeynayaa iyadoon aan la kala saarin dadkii dhibaatadu ku gaartay tiyaatarka Xamar marka kale waxaan u gudbaa aayad quraan oo dhahaysa yaa ayyuhalladhiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu haddii dhaalim nin ah idinla yimaado mataqaanaa wax uusan aan jirin cadeysta ha ka shalaynina hadhow waxa aad qabateen waa aayadda quraanka marka waxaa loo baahan yahay horta waa mataqaanaa arrimaha ka dhacay Xamar midba midda kale waa ka cusleed marka laga soo bilaabo 4-5 wasiir baan dhaho oo ugu horeysay oo Shaamow يعني إلى حد وحلو قبط أو لتابع كرمالها ثم أنت آد يا آدي نصيب درة أطهي هدانا بوحد دحي وحلقة قبل نيك خائن كجيسي وسين غنا وحو جادنا حد يجار إنه دبعت دليو وحو جوجي كرا أو كلية مركي مرو البع لقبته أوكي هدي آدو متقانا بارستا waxaan u kala bixi jirnay ka daba tag iyo ka hortag hadda Xamar waxa la sameey kara ka hortag waay weligood ka daba tag ma sameyn hal qof oo dambiila ay soo qabteen oo maxkamad la saaray marka laga reebo askaraha ma jiro mana arag aniga cidii maqashana waa ii sheegi kartaa marka ka hortaga waa ka qiimo badan yahay ka daba taga wuxuu uga qiimo badan yahay hadii wixii on dhicinaad ka hortagtay marka taas waa u soo noqonaynaa General waxaan ku weydiiyay xaaladda ammaanka ee magaalada Muqdisho aragtidaadu hadda maxay kula muuqataa ma meel la isku haleyn karo amnigeeda mise waa meel aad isleedahay khatar weeye ammaanka Muqdisho maya la isku ma halay karo waxaan ku sheegaa inaan la isku halay karin inta suxufiyiin oo lagu dilo maalin walba waa la dilaa hal qof oo la soo qabtay malaha yaani in laga daba tagay ahayd hadii ay ka hortagi waayeen in laga daba tagay ahayd awood looga daba tagana ilaa hadda uma jeedo marka saadaradeed waa ninkii Soomaalidu waxay iska aaminsan tahay ama adiga General arinta suxufiyiinta kaliya haddaadan aadan oranaynin magaalada Muqdisho nabadgelyada suxufiyiin bas lagu dilaa dad badan la dilaa suxufiyiinta ka badan oo rayda ayaa iyagana ku dhinta marka wax rasmiya oo la taaban karo aad ku dhaliilayso ammaanka oo aad leedahay qodobkaas iyo qodobkaas iyo qodobkaas cid baa la dilay kaliya ammaanku waa maalin walba meel walba dad baa lagu dilaa hadda marba hadaysan jirin qof la soo qabtay dadku waa qanci lahaayeen kuwa wax dilaana waa cabsan lahaayeen hadii dad laga soo qaba lahay ilaa hadda ma hayno ama suxufi ama wasiiradii dhameedo dawladda wasiiradii ala leeyna xildhibaanadii ala leeyna mataqaan kuwan tuugada oo burcada gooni waay oo dharka inta gashada ciidamada dhacay dadka taasuna waa gooni marka ninna ma dhihi karo marka waxaad leedahay wax kasta oo jira amaan darra jirta mana la aamini karo xilligan magaalada Muqdisho waa ma santahay General waxaan siinayaa Colonel Cabdullaahi Cabdi Maxamed oo kamid ah saraakiisha ciidanka nabad sugidda waxaad nooga warantaa Generalku waa maqlaysaa dhaliilihiisa sida muuqatana waxyaabaha dilalka uu ka hadlayo waa waxyaabo dhacay oo ilaa imikana aanay jirin cid loo soo xiray marka adigu maxaad kaga duwan tahay Generalka ama maxaad ku fakartahay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaan waxaan salaamayaa martidii iyo odayaashii iyo suxufiyiintii noo diyaariyey programkan aan caawa fadhino. waxaan kaloo salaamayaa dhammaan dadka sharafta leh ee kala soo qayb galay kulankan sida cabdimaalik iyo ismaan. arrintan markaan dib u soo noqono yar halaada waxaa kaloo ii dhiman inaan maanta hambalyo u diro oo aan u hambalyeeyo. waxaan rabaa maanta waa maalintii ciidamada Soomaaliyeed xoogga dalka Soomaaliyeed waa 12 Abriil. waa maalin weyn taariikh leh. waa maalintii ummadda Soomaaliyeed ay ku tiirsadeen. waa maalintii ay ciidamadii militariga aas-aaskooda ahay. taasina waxaan rabaa inaan sanad guuradaas uga diro. waxaan kaloo u tacsiyeynayaa dhinaca kale kaga faa'iidaysanaya munaasabadan caawa noo qabata Nadaara inaan u tacsiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhimatay meel alle meeshii wax ka dhaceen ilaa tii ugu dambeysay ee ka dhacday tiyaatarkii Muqdisho. markaan dib u soo noqdo su-aashii aad i weydiiseen ee ahayd magaalada Xamar ma meel la isku halayn karaa? magaalada Xamar waa wax badan ay tahay maanta meel la isku halayn karo. waa iska caddahay dowladda maanta jirta markay imaanayso waxay ciidamada cadowgooda u taagnaay al-shabaab iyo wixii halmaala iyo wixii kaalmeeyay waxay taagnaay laga celinayo wadada Makka Mukarrama. taas waxay ku cadeynaysaa qofka lama xaqir wuxuu qabto, lama xaqir wuxuu sameeyo. taas waxay ku cadeynaysaa wax badan inay iska bedesho magaalada Xamar, wax badan inay ka noolaatay magaalada Xamar, wax badan inay u qabteen ummadii aan gaar ahaan amniga inay wax ka qabteen ciidamadii qaranka nooc kasta noqoto waa dareemaysiin. ma u baahna taasi in maanta taan Xamar lama tegi karo lama galaan waaye waa laga baxay taas. nabadda markii laga hadla Xamar maalin walba la hadalnaa Xamar aan tagnaa oo aan dadka weydiinaa oo ka warhayna Xamar tigitaankeeda. Xamar wax badan iska bedelay. waa dhacdaa sometimes inay ku dhinteen rag muhiim ahay wasiiro ah magac lahay. waana dhacaysaa inta badan waa dhacaysaa adduunyada ka dhacdaa. markaa fiiriso maanta Ciraaq, markaa fiirisid maanta Mareykanka, markaa fiirisid meel kasta wax way ka dhacaan. Xamarna waa meel la tegi karo la aaminsan yahay 100% inay tahay meel safe markii loo fiirsho la baalan dhigo sidii shalay ahaa. laakiin generaalka hadalkiisa waxaa ku jiray dilal badanaa dhacay ilaa haddana ma jiro dad loo soo xiray. saas darteed aragtidayda iyo aqoonta aan amniga u leeyahay meel wixii la rabo la iska dilayo haddana aan la qaban karin lama oran karo ammaan waay. taasoo ma kuu muuqato adiga maadaama aad tahay laftirkaagu sarkaal ciidamadii Soomaaliya waliba nabad sugidda ka soo shaqeeyo oo ammaanka qaabilsan? nimadan ku bilaabay amniga markaan ka shaqeynayo ciidamadii nabad sugidda aan u shaqeynayo anigoo arday ah dugsi sare dhiganayo ku bilaabay ilaa aan ku gaaro waqtiga hadda aan joogno. waa qiyaasi karnaa waana dareemayna waxa la dilay kaliya maaha suxufiyiin, waxa la dilaa ciidanka nabad sugidda qaranka, waxa la dilaa rag badan oo aqoon leh, waxa la dilaa gudoomiyaasha degmooyinka. sidee marka nabadgelyo loo dhihi karaa? marka ma aha dilkaasi ma ahan mid ku kooban hadda ma waa wax hore u dhacay. inta badeed waxaad ka hadlayseen waa waxayna soo dhaafay degmooyinka markaan ku leeyahay waa dowladii hore waxayna soo dhaafay. baryahan dambe waa laga yaabaa inay dhaceen waxoogaa dil ah. dilkaasna hadda waa lagu maqan yahay. tii u dambaysa markaan soo qaadano suxufiyiintii iyo tiyaatarkii tii lagu dila markaan ka soo qaadano limbaryaatan u dambaysa taas waaye hawshaas meel fiican maraysaa baaristeeda mana aha mid la iska daynayo. taas oo soo noqonaynaa si gooniya u galayna waa mahadsan tahay. Cabdimaalik haye ma kula tahay magaalada Muqdisho xilligan meel lagu tilmaami karo inay tahay nabadgelyo oo qof walba ku noolaan karo si xor ah maadaama aad ka shaqaysaan adinka iyo wariyaashaada iyo adiga iyo magaalada Muqdisho aad xarun ku leedihiin? بسم الله الرحمن الرحيم. horta aad ka mahadcelinayna barnaamijkan aan noo qabateen maanta. sidoo kale waxaan salaamayaa General Falco iyo walaalkay waxaan salaamayaa Corneelka Cabdullaahi. markaan soo qaadano magaalada Muqdisho run ahaantii waa ayaan daro in Corneel Soomaaliyeed oo Soomaaliya u soo bartay inuu maanta yiraahdo waa ammaan. runtii annaga waxaan aaminsanahay magaalada Muqdisho sidii dowladdan ay u timid inay ammaanka u ka sii daray oo aan waxba laga qabanin ka hortagna uusan jirin wax ka qabashan aysan jirin. tusaale markaan soo qaadnaa annaga aad markaan soo qaadnaa agaasimihii reediyo Shabeelle Allah naxariistay Xasan Fantastic waa la dilay galabaa la dilay. galabtii markii la dilayay waxaa idaacadda waxaa ka raacay nin baa u yimid oo ka raacay. markii la dilay nin baa la socday waa la dilay gabdha arkayay. qolada nabad sugidda qoladii oo dambaarista u sheegnay gabdhihii yaa sheegay nimanka tilmaamtoodii waa la soo qabtay labana la soo qabtay. okay baarisaa la keenay ninkii la socday lama raadin idaacadda lama imaan guriga lagu hordilay looma tegin rasaastii lagu dilay lama soo qaadin. markay hayeen muddo markay hayeen waxaan ninka waxba kuma hayno nimanka waxba kuma hayno labadiina waxba kuma hayno. waxaan idhi sana wax loogu geyn dadkii maba intaan baarinba ilaa hadda waxba laga qabanin. waxaa ku xigay Xusni
weriye ah oo lagu dhaawacay asna magaalada muqdisho. xusni raggii xabaday waa u caray nasiib wanaag alxamdulilah shurb caalamiin ilaah badbaadiyey waa u ka baxsaday. raggii nin kamida ciidanka dowladda xabaday waa u dhaawacmay farmashiyo ku yaala magaalada lagu daaweeyey. dowladda markaa tagna baari aan niri waxba ma aysan baarin, waxba lama qabanin, lama raadin, lama tegin, waxba lama qabanin. marka magaalada muqdisho guud ahaan markaan hadda ka soo qaadno markaas laga soo tago dowladda ku meel gaarka maxaa adinka la idin beegsanayaa baad is leedahay oo beelo gudahood wariyaashaada iyo maamulkii idaacaddii ka furnaa magaalada muqdisho maxaa taarget looga dhigtay oo iyaga loo beegsanayaa? annaga waxaan aaminsanahay maxaa dambiyo aad gasheen? marka annaga waa hadalnay waxaan aaminsanahay in la rabo in meediyaha la aamusiyo gaar ahaan Shabeelle oo runtii markasta ka hadasha xaqiiqada dhabta ah. dhinaca dowladuna nama jecla oo markasta dadaal nooga yimaado dowladda xaggeeda. dhinaca shabaabkana waa nimanka aan ka soo cararnay oo marka hore aan uga soo cararnay suuqa bakaaraha oo maangeli aan usoo galnay dhinaca dowladda aan usoo galnay. haddana stiil dowladdii waxaa naga haysta handadaada nagu haysta iyo dhibaato ayagaan cabsi qabnaa. haddana la joogo wariyaasha Shabeelle waxay dhex degan yihiin idaacadda dhexdeeda banaanka uma baxaan ayagoo cabsi ka qaba dhinac walba. cidda ku dilaysa lama oga, dowladdu ma baarayso, ma raadinayso. marka meeshaan dhex joognaa. markaan taas ka soo tagno ammaanka muqdisho waa mid aad u adag, mid la aamini karana ma aha. sababtoo ah hadda anaga stuudiyan ku jirnaa, stuudiyan ku jirnaa albaaba laga soo galaa. markaan ka soo qadno qaraxi ka dhaca tiyaatarka oo kale xildhibaanadu waxay sheegeen in si loo baarayo dharka laga bixiyey. waa u soo noqonaynaa qaraxa asaga mawduuc kale. marka waa sii wadanaa. marka ammaanka magaalada muqdisho hadda waxaad maqlaysaa darad waxaa dhacay in oo ciidamada dowladda isku xabadeeyeen, isku rasaaseeyeen oo taleefanka saldhig hoodan la dilay. meel ciidamada dowladda isku rasaaseynayaan oo taliyaashii ciidamada la dilaayo qof shacab ah oo rayid ah ama suxufi ah soo ugu dhex nool kara ma ku soco karaa? kow habeen kasta magaalada muqdisho dadaa lagu dilaa oo xaafad kasta dadaa lagu dilaa, lama soo qaado oo cidkaada shimal dowladda ma baarto, ma daba gasho. waxaa kaloo ku xigta maamulka dowladda laftigiisa 4 saac dowladda isdiraysa. maantaan ugu dambeysay gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa weeraray sida loo sheegay xaafadda Cabdicasiis gudoomiyaha weeraray. waxa la xilka laga qaaday gudoomiyaha okay ma dhiibayo xilkii. gudoomiyaha gobolka Banaadir soo ciidan wato baxay waxa uu tagay gurigii, waxa uu tagay xafiiskii oo degmada u tagay, xabada ku bilaabay. 2 qof oo ciidan ku dhaawacantay, 3 qof rayid ku dhaawacantay. rayidkaas in la weydiina ma lahan. waa mahadsantahay Cabdimaalik. Generaal ma nala socotaa? si fiican waa tahay waad maqlaysay Cornel Cabdullaahi iyo Cabdimaalik, maxaad ku kordhinaysaa? waxaan ku kordhinaa marka ugu horeysa mataqaan nimankan oo journalistiga ama saxafiyiinta waa garsoorka dhabta ah ee wadan ilaaliya. haye haddaysan jiri lahayn dowladdu waxay naqalaheed mid dadka dardarta. garsoorka dhabta ma ahan garsoorka maxaakiimta loo yaqaano. garsoorka dhabta ah waxa waaye wariyayaasha. maxaa loo beegsanayaa aad is leedahay adiga wariyayaasha oo hadda in la caburiyo waa iska cadaataa ilmahaaba garan kara in la caburiyo ay ku kala cararaan meesha waana dhacday. adiga ila hadlahay waa ka soo carartay ma garatay. marka waxaan rajaynaa in arintaas dib loogu noqdo. waa tahay generaal aad baa u mahadsan tahay. arrintii waxaan galaynaa oo muranka xoogga leh uu ka taagan yahay hadda qaraxii ka dhacay tiyaatarka oo dad mas-uuliyiin ah ay ku dhinteen, wariyaal badan ay ku dhaawacmeen, oo iminka sida aad warbaahinta kala socotay is-eedayn xoog leh dowladda dhexdeedii ay ka taagan tahay, oo madaxweynaha sheegay inaan la wargelin hay-adihii nabad sugidda sida ciidanka booliiska, ciidanka nabad sugidda iyo AMISOM. saas darteed wasaaradda warfaafintu iyadoo keligeed ay hawshaa iska qabsatay, xafladda iyadoo ay maamuusatay. inkastoo wasiirka wasaaradda warfaafintana uu arrinkaasi kulul u beeniyey oo uu yidhi cid aanan wargelin ma jirto. marka adigu khibradaada dhinaca ciidamada marka aad eegto wixii ka dhacay tiyaatarka oo hadda iminka aanan doonayn inaan wax badan kaaga sheegno, xog badan aad ka hayso, sida ay wax u dhaceen yaa iskale mas-uuliyaddaas? ma saxba inaan la wargelin ciidamada amniga dowladda? horta marka hore waxaan kuu sheegayaa ama ummadda Soomaali u sheegayaa haye shaqada dowladda waa qaybsan tahay. haye
midaan nabadgelyada weligeed annaka maba ka suginba in naloo soo sheego. haye annakaa sanka la raaci jirnay oo mataqaanaa meeshii aan isleenahay waxbaa ka imaan kara intaanan falla samaynaan aan geli jirnay. haye waa dad tababar qabay ahaayeen oo siday wax u goobaan, siday evidence-ka u helaan, sida wax loo tuhmo dad la soo baray ayay ahaayeen. marka inta badanba waa ka hortegi jirnay. waa xasuusatiin dawladdii oo militariga ahayd meel oo dawlad ka nabadgelya dhowri og ma jirin, walow markii dambe hadax dhacay. waxaan xasuustaa anoo xidigla ah 77kii oo markaas talyaaniga ka imid. waxaan xasuustaa iyadoo xamar lagu naadinayo cawada shineemooyinka waa xiran yihiin. waxaa diriray 2 qabiil oo walaalo ah ayaa xamar ku diriray si looga badbaado. marka shineemooyinka waa la xiray, magaaladaas soo gelina. waa dad badanaa kolleyba ila ogaay nin Arbaca la dhihi jiro oo dhiisiga warkiisa faafiya ayaa naadihayay. abeene oo dhashay revolutionka waa xasuusatiin nabadgelyada ugu fiicneed dhacday. waxaa ka hadlay generaale adiga dawlad dhisan oo wanaagsan oo hawl oo badan qabanaysa, dadkii oo aan hub haysan, nidaam horaa ka hadlaysa. laakiin hadda dad inay isdilaan doonaya oo isqarxinaya jooga, dadkoo dhan way hubaysan yihiin. miyaadan dawladda ugu turayn taas oo aadan lahayn alay lehe dawladdu intii ay qaban kartay way qabatay, waxayna ahayd in la wargeliyo hay-adaha ammaanka? maya, mar walba dhaliisha aan dawladda u jeedinaa waxa waaye Soomaali waa 4 xabo, waa iswada naqaanaa. intii aqoonta lahayd dibadday soo jirtaa. marka mataqaanaa nin odaya ah wuxuu igu sheekeeyey inaan hadda sheegay ma aqaan. annaka dad aan wax u sheegno ayaan rabnaa, ma rabno dad ayaga wax noo sheega. hadalkaas waxaa laga hayaa madaxda dawladda hadda ah. waa tahay. waa ugu dambayntii waxaan ku weydiinayaa, hadalkaagu wuxuu u muuqdaa inaad aqoon la-aan dhaliilayso. madaxda ammaanka miyaad dhaliilaysa oo aad leedahay aqoonta loo idmaday ma haystaan miyaad leedahay, oo adiga ma arrinkaabaad og tahay? 190 waa sarkaal beeleed, waa nin dad soo laayay. taasaan ogahay. 1 iyo 2 iyo waxaan ahaynaa ku jira mataqaanaa. waa tahay generaal waa mahadsan tahay. cornel haye. waxaan dhegeysanayay generaalka Faalko fikirkiisa. waad moodaa inuu generaalku joogo weli inuu ka hadlayo amba isku barbar dhigayaad moodaa tii dawladdii ana soo dhaaftay Maxamed Siyaad iyo inuu la socomo burburka ka dhacay wadanka, in hay-adihii wadanka ay baaba'een, in wadankii qax ka dhacay, in cadow yimid al-shabaab la yiraahdo, in wadankii 20 sano ka dhasheen idaacado badan, ka dhasheen website badan, ka dhasheen qolo badan, dad badan oo diidan nabadda ka soo horjeedo, xamar iska joogo, idaacada ka furteen, dawladdii timaadaba ka soo hortaagan ee ka hor imaanayo. ismaanka generaalka wuxuu ka hadlay, waxaan arki jirnay yiri markii amni laga hadlayo iyadoo waqtigii la gaarin aan sii hordegno. taasi waxay ahayd xilligii dawladdii waxay ahayd weyneedayd. waxaa jira systemka jira. maanta waxaan joognaa wadan burburay, waxaan joognaa wadan 20 sano ay ka dhasheen idaacado fara badan oo aan leysana haysan. waxaan joognaa wadan xilli ay ka dhasheen isbedel fara badan. waxaan joognaa wadan qax ka dhacay. waxaan joognaa wadan soo bilow ah. dawladda hadda maanta madaxweyne Sheekh Shariif hogaaminay markii uu qabsanayay talada xukunka wadada Makka Mukarrama lama mari karo, marqaatiyaad ka ahayd. marka generaalku waxaan u sheegayaa war hadda waxaan joognaa aas-aaskii 30 sano oo sheegay dawladda jirtay iyadoo bilowha maanta joognaa aas-aas first year generaalka adoon isku mashquulin. laba hadal oo isbarbar socota ayaa jawaabkaaga baahan. madaxweynaha wuxuu leeyahay hay-adihii ammaanka lama wargelin, wasiirkii warfaafintana waxa uu leeyahay hay-adaha ammaanka iyo cid walba waan ku wargelinay, waa u sheegnay xafladda. haddee marka hay-adaha ammaanku marka hore iyagu ma in la wargeliyaa mise waxay mas-uul ka yihiin islaanta yaanyada gadaysa oo suuqa joogta, ninka dukaanka gadanaya, meel kastaasoo iyaga mas-uulka ma aha. wargelinta ay u baahan yihiin manoo fasiri kartaa? hay-adaha ammaanku waxa waaye u baahan yihiin wada shaqeyn ay u baahan yihiin. hay-adaha ammaanku ma ahan electric ma shaqeeyaan. hay-adaha ammaanku waxay ku shaqeeyaan mas-uuliyiinta dawladda iyo dadka hoggaanka haya iyo dadka madaxda ah iyo dadka samaysanayo xafladaha iyo madaxda mas-uuliyiinta wadanka. waxaa laga rabaa kuwaasi inay u diyaar garoobaan inuu wadanka cadow joogo. waxaad moodaa inuu cadow ku xisaabtamo cadow inuu la jooginba. wadanka cadow waa joogo, weli cadowgii wuxuu joogaa ceelasha biyo uu taagan yahay, bal cadow taagan yahay. magaalada xamar waxa waaye suumankii soo dhimayay bambadii lagu qarxiyo haya. marka wasiirku
weli hadda baarista waa socotaa hadda confirm ma dhihi karno wixii waa 100% ma dhihi kara laakiin sidaan wararka muhiimka ku maqleen waxay tahay oo aan soo gaaray inuu wasiirku iska fududeystay in arinta tani hadduu sheegan uu si maqaal u sheegay si qoraal uu sheegin ilaa anuu ma maqlin qoraal wadaadka wasiirka sameeyay laakiin waxa way amniga socdo baaris ku jirtaa laakiin waxa warar hor dhacan ku haysana inuu wasiirka ku fududaaday dhaqso asigoona wargelin hay'adaha amniga waa macquul sababtoo wasiirka afkiisa waxaan ka haynaa inuu cid walba wargeliyay laakiin qoraal bay masaf bay su'aasha runtii waxa moodaa walkay inuu hadda dawladda u leeyahay amaanka sugtay war qof asaga amaankiisa sugala umad say amaankeeda oo sugaysaa waa ma jirto annaga hadda istu albaab ka soo galnay tiyaatar hal albaab uu leeyahay albaabka laga galay xildhibaanada waxay noo sheegeen in xildhibaanada si walba loo baaray oo meel farta laga gelay noo sheegeen ayagoo xildhibaano ah xildhibaan marka soo qof ismiidaamin ah haddaan lala ogeyn soo gala meesha waa arrin kale kow dawladda haddii ayada ammaankeeda ay sugi weysay waxaan aaminsanahay inay sugi karin amaan oo dad shacab ah muqdisho isugu karin hal qol hadda amaankiisa sugi weysid qol badan ma sugi karta amaankiisa marka dawladda ani waxaan aaminsanahay inay ammaankii muqdisho ay ku fashilantay ay wax ka qabo weysay qodob kale waxa waaye madaxweynaha wuxuu yidhi golaha lama wargelin hay-adaha ammaanka wasiirkiisii wuxuu yidhi waa wargelin hay-adaha dhan waa aan wargelinay maxaa keenaya marka in wasiirkii uu yidhahdo waa wargelin hay-adaha oo la wada og yahay madaxweynuhu yidhi lama wargelin meeshas waxaa ka muuqata xoogaa in wax laga shakeeyo meesha ay ku jiraan annaga runtii aadan ugu tacsiina dad ku dhintay iyo dad ku dhaawacmayna waxaan leenahay allah caafiyo annaga wax ku jira werigaa nooga jira laftigeena meesha ku dhaawacmay cid daryeesha iyo cid u tagtay annaga maana aysan jirin marka dawladda waxaan leenahay ammaan dawladda mas-uuliyadda muqdisho ammaan ma aha dadkana yaan la hodin waxaan ka codsanahay inay dawladda ummadda in loo fasaxo in iyo amisomba in dadka ay hub qaataan oo qofka naftiisa iyo oo ku difaacda iyo hantida uu leeyahay iyo meesha uu joogo maana aan la dhihin dadkii waa la sameynaa midda kale markaad soo qaadato markii waxay dhaceen ummaddii waa kala qaybsantay cid wixii xaqiijistay ilaa hadeertaan oo qaraxi ka hadasha oo xaqiijistay oo dawladdii ah oo meesha tagta ama dad private ha kireysteen ama dawladda ha baartay ma jirto okay nabad sugiddu waa dawladdii laakiin guddi wasiiraa ayaa loo xilsaaro laga warsugayaa waqti dhow waxaan u malaynaya inay war soo saari doonaan aniga waxaan aaminsanaa guddi wasiirada waa wasiiro baaris shaqo kuma laha hay-adda baaristoo dhan ba haddaysan wixii aysan ban ay yihiin dad oo sida uu sheegay generaalka yihiin dad oo aan wixii aqoon u lahayn oo meesha la keeno ama wadaadadii maxkamadaha ka haray ah ama dad lamid ah haddii meesha ay joogaan baaris waxba kuma keeni karaan baarista waxaa loo baahan in la geeyo dadka aqoonta u lahay oo baarista lahay in la geeyo waayo shalayba haddii joogi lahayn dad waxaan yaqaan haddii joogi lahayeen waxaan aaminsanahay inay wax badan oo maanta dhaca isa dhici lahayn oo laga hortegi lahay sida uu jananka uu sheegay laga hortegi lahay laakiin maanta waxaan balanahay kahortag iska daaya waxaan balanahay ka dabatag yaan la-nahayba waxaan waa dhaceen okay yaa sameeyey maxay u dhaceen waqtiga hadda soo dhaafay adinku si gaar ah wax handadaada oo dhinaca amniga dawladda idinkaga yimid maa jira idaacad shabeelle ahaan annaga mar kastana la handaa gobolka banaadir nooga timaadaa madaxtooyada nooga timaadaa raadi muqdisho laftigooda oo idaacaday nooga timaadaa inta handada nooga timaada marka maxaa la idinku handadaya waxaan lagu handadayaa dawladda waxa ay samaysma sheegi kartaan madaxweynaha waxa uu qaldamo sheegi kartaan gobolka banaadir waxa uu qaldamo sheegi kartaan laakiin corruptionka soo dhacaya ama musuqmaasuqa dhacaya meesha ma sheegi kartaan laftirkiinu soo ma dhici karto warar badan oo aydan ka fiirsan oo aad sii dayseen oo qalad noqday in dhibkan uu keenayo maya annaga wararka aan sii dayno waa warar muhiim ah ummaddan ay u baahan tahay dawladda lafteeda in la saxan ay u baahan tahay laga saxo musuqmaasuqa kale dhacaya ama hantida la boobayo oo wadanka oo la boobayo ayagoo cadaa helnaa markaan helno oon sheegno isla markaan dada noo imaanaysa waa tahay jenaraale ay maqlaysaa waa tahay jenaraale arrinta muhiimkaa waxay tahay waxaa ishaysta madaxweynaha iyo wasiirka warfaafinta ra-iisul wasaarihii weli wax wara kama hayno xubnihii kale ee dowladdana baaritaankiibaa laga warsugayaa hay-adihii ammaankana booliiskii iyo nabad sugidii waxay ku adkaysanayaan in aan la wargelin oo qaraxa iyagu aanay shaqo kulahayn marka khibradaada dhinaca amniga marka aad dhinacyadan oo kale aada dhageysatay maxaa kaaga soo baxay meeshaas horta horeyna waa u taabtay haddana waa ballaarinayaa haye ciidamada nabad sugidda booliiska ciidamada qalabka sidoo dhan waxaa ka saaran waajib mataqaanaa inay ayagu raadsadaan meesha nabadgelyo xumo ka imaanayso
hadda wasiirka wuxuu baleeyahay 10 beriyaan naadinaynay waana u sheegnay laakiin maba loo baahna waa inay waxay u shaqo tagaanba subax walba markuu hurdada ka kaco waxay u shaqo tagaan waxa waaye sida loo ilaalin lahaa nabadgelyada si aan dembi u dhicin in kulli laga wada hortago marka taas wax cudurdaar ah ma noqonayso midda labaad waxaad moodaa competence wax la yiraahdo competence kala lahaashada shaqooyinka dawladda waliba inaan la fahmin waxa yaab ah madaxweynaha wuxuu shaqo ku leeyahay unity of the state midnimada dalka Soomaaliyeed dembiba ma geli karo dastuurka sax lagu sheegaa wuxuu leeyahay hadduu lacag qaato hadduu wax kala sameeyo dembi malaha dembigaas waxa qaadaya prime ministerka oo la saxiixay decreto walba ama wasiirka competent-ka ah marka waxay noqotay wax lala yaabo in madaxweynuhu hormaro oo yiraahdo qoladaas dembiga gashay waa wax cajiib ah runtii oo adduunka wali lagu maqal madaxweynuhu waa inuu ahaadaa ninka ugu dambeeya markii wax walba loo keeno baaristii kulli oo iska xaqiijiyo wuxuu dhihi karaa okay maxkamadda la geeyo asoon ku dhawaaqin xataa balkee anshixiisa ka weyn oo maaragtay waa ka weyn yahay marka meel madaxweynihii hor cararaayo waxay noqonaysaa dhibaatadii inay sii kororto oo geesi ay noqdaan nimankii dembiilayaasha ahaa oo dadka leynayay kuwaan waxba ma kala oga inuu yidhaahdo marka aad iyo aad ayaan uga xumahay in arrintaas la ogaadana waa loo baahan yahay ko nin asagaba dhimo rabay ilaa prime ministerkii asagoo dhinac fadhiyeen kaliya waxay u istaageen marka uu prime ministerka khudbaynayay hadda ninka miyuu isdili lahaa caqliga xataa diidaay caqliga elementaryga ah oo ibtidaa'iga ah wuxuu diidaa waa tahay generaal waa maasan tahay cornel cabdulaahi baan siinayaa cornel cabdulaahi su-aasha soo noqnoqonaysa muhiimka waxay tahay nabad sugidii iyo booliiskii hadday ku adkaysteen inaan la wargelin soo meesha ma tegin prime ministerkii wadanka soo ma aha in hay-adaha ammaanku dhaqdhaqaaqa madaxda ay la socdaan oo xafiiska prime ministerka nabad sugidda soo shaqaalo kuma laha oo meelaha uu aadayo soo ma oga sidee arrinkaa khibradaada dhinaca nabad sugidda noo sheeg see ku ogaan waaye nabad sugidda iyo booliiska meel uu tagaayo prime ministerka iyo wasiiradii dowladda ugu sarreeyay gaashaandhigii ganacsigii oo ra-iisul wasaare ku-xigeenna ah markaad fiiriso arrinta haddaad ka hadlaysin ka dhawaajiseen arrinta aad leedahay muxuu utegi waayey hay-adaha amniga hay-adaha amnigu horta mar kastaba arrintan dhaqdhaqaaqaas waa la socda wixii ka dhacay haba yaraatee waa la socdaan laakiin ujeedadu waxaan ka haynaa in ay yiraahdeen waxba annaguna laguma wargelin taaba saxba waa wax cad waa taas wax la weydiinaya ma wax cad waaye waa wax hay-adihii guddiga loo saaray arrintan wasiirada golaha guddiga wasiirada ah waa korkay ka ogyahay xaajada mooy la guddi isku dhaf ah oo booliiska nabad sugidda loo saaray arrintaana baaraya kuna jiro go-aanna ka soo saaraya warka madaxweynuhuna ma ahan mid asigo dadka lasoo raadsaday waa mid ay wariyayaasha ka raadsadeen wuxuu yidhi warar hordhaca maaha warkii go-aanka maaha weli go-aanka waa dhimay waa sugayna insha allah laakiin arrinta waa dhacday waxaa fiican inaan ka hadalno wartan waa dhacday bardamiyay dhicin laakiin haddii la yidhaahdo wasiirkii muu sheegi wasiirka waxa waaye hay-adihi amniga sida ayagu afkooda ka sheegay waxay yidhahdeen nooma sheegin yidhahdeen marka nooma sheegin markii la yidhahdo waxay ahayd meesha la baarayo intaan baarista dhicin ka hor ama meesha intaan xafladda lagu qaban ka hor ugu yaraan 24 saacadood waxaan arki jirnay xilligii dowladda hore maxamed siyaad waxaan arki jirnay meeshii xaflad lagu qabanayo ka hor in hay-adaha amniga la wargeliyo hay-adaha amniga ee 24 saac gudahood ka hor ay meeshii controlkeeda ilaaliyaan laakiin haddaaban sida sheegayeen aan lagu wargelin ee la yiraahdo waa lagu wargelay ama maxay ogaan waayeen waxa waaye waxaad moodaa wasiirka warfaafinta oo dowladda ka tirsan waxuu noo sheegay inuu bil ka hor uu hay-adaha la wargeliy noo sheegay marka yaan rumaysanay madaxweyne rumaysanayna oo yidhi lama wargelin oo madaxweyne hay-adihiina ma aysa hadlin hadirta nabad sugidna ma aysa hadlin booliisna ma usa hadlin hadda waxa hadlay waa madaxweynihii qaranka wasiirkii waxa uu sheegay warfaafinta inuu bil ka hor uu wargeliyey hay-adaha nabad sugidda oo nabadda loogu talagalay hay-adaha Soomaaliya inta meesha tagaan ay maalin ka hor ay meesha ay baaraan
oo ay xirtaan afar laba tasac kahor in qabtaan ay ahayd ay baaraan meeshii control ku hayaan xafladii lagu qabtay ahayd sidaas wasiirka afku ka sheegay ma beentima marka laakiin ma dhihi karno waa been mana dhihi karno waa run sababtoo waa wasiir dowladeed waa laakiin waxaan rabnaa meesha guddiga loo sameeyey arrinta soo baaraya laakiin haddaan websayada iyo idaacadaha qaar warkooda qaadano waxay noqonaysaa in midi ku taagay noqonaysaa arsiina waqti waayahay generaal mana maqlaysaa fiican generaal waxaan rabay inaan ku weydiiyo haddii xataa la yidhaahdo hay-adihii nabad sugidda lama wargelin ma jira xiriir rasmiya oo ka dhexeeya xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda iyo hay-adaha nabad sugidda haddii ra-iisul wasaaruhu meel aadayo ma waxay u baahan yihiin in si gooniya loo wargeliyo mise qaybtooda ka shaqeysa xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa arrinka la socota taa ma noo faahfaahin karta annagu ciidamada wax badan kama garanayn aada iyo aad meesha ou prime ministerka tegaayo ama wasiirada wax kala fadli badan meeshaan ma jiraan wasiirada iyo prime ministerka iyo madaxweynaha waa madaxdii dowladda meel alla meesha loo malaynayo inay maraan waa in ka hor lasii miino bixiyaa weligeed cudurdaar ma noqonayso mataqaanaa aadan ogaxuma cabdullaahi waa nin nabad sugid ah investigator ah in maaragtay cudurdaar loo suubiyo waxa waaye objective in la ahaado waaqici yacni in laga abaaro waxa loo baahan yahay in laga sheego laakiin haddii caadifad iyo meesha ay soo gasho haddii waxaaba qofka shaksiyadiisi wax u dhibaa iska dhaaf bini aadan kale marka arrintaas waajib bay ku ahayd horena waa u sheegay haddana waa leeyahay subax walba inay raboorka geeyaan dalkoo dhan waxa ka dhacay xataa hadda kuwan shabaabka maaragtay inay og yihiin waay maxaa kismaayo ka dhacaa maxaa mataqaanaa diinsoor ka dhacaa waa inay og yihiin marka ummadoo dhan aad adeegsanaya adiga dawladaa tahay lacag baad haysataa waa qorani marka waxaa halkan ka muuqata in maaragtay oo dadkii aanan aqoonba u lahayn inay iska ordaayaan dhinac ka raac waa tahay waa mahadsan tahay generaal falco cornel cabdullaahi su-aal baan ku weydiinayaa hadal uu hadaaye cabdimaalik soo hadal qaaday oo madaxdii dowladda ciidankii dhexdiisa maalin walba isxabadeynayo dilay waxaa kaloon haynaa toddobaadkan degmada boondheere in dad wata dareyska ciidamada inay ciidan yihiin iyo in ay iska soo qaateenna looma sheegin inay wiil yar ku dileen oo mobile ka qaateen amni darro xumo magaalada jirto uu noo sheegay maamulaha Shabeelle radio in la dilay taliye ku-xigeenkii degmada Hodan booliiska dhexdiisa israsaaseeyeen gudoomiyihii gobolka iyo gudoomiyihii degmada Cabdicasiis ay rasaas isku furayaan sidee amniga noocaasa aad ugu tilmaami kartaa amni wanaagsan oo fiican yaanay ahayn haddii qaladaad jiro inaad tala keentid oo aad tiraa waxaana way qaldan yihiin waa in la saxaa السلام عليكم نظر وركا في عينها سؤال في عنا ذي ويدسي أبا نجعل سؤال نوع عصا كلا ودك مركو إسبدل دعايو أو حالات لو جرى وحاي ما ناي وحول باسكي ما كره لما تنكي سنة صودا فرنا ودك وحول نقضي ميل قف كست وحي ربان أي سمستان waxay doonaan ay sheegaan hadda xamar marka aad joogtid oo kale sida wararku soo gaaraya marka inta joogtid sida wararku soo gaar waa kala duwan yihiin inta marka aad joogtid waxa lagu leeyahay ciidaha hebel kala dhacay idaacada BBC ka maqli jirnay idoo leeyahay dagaal xoog la ka dhacay meesha waa taaganaa mana maqli jirin askari soo libistay wax dhaco ama wax dilo waa iska macquul laakiin hadda waxa loo sameeyay hab lagu qaban lahaa waa ogsoontiin wax badan iska bedelay ciidamadii faraha badnaay isbarbar yaacay jiray wax badan iska bedelay ciidamadii kufsiga sameeyay jiray ama mobilka qaaday jiray wax badan iska bedelay ciidamadii dhibaato u geysan jiray shacabka maxaa dhacay shacabka in loo shaqeeyo ciidamada loo dhis waxa la sameeyay maxkamadii ciidamada oo talaabo xoog leh ka qaaday wax qabad xoog lahaa hadda jira gaar ahaan ciidamadii inta badneed marka ilaah laga cabsanay inaan la mideen xilliyada hore sidii ahaa jireen wax badan iska bedel wax qabad muuqda jira ciidamadii waa la control hadda data mar waxaan ka maqlaayay suxufiga waxa la dhaawacay xusn waxa ka soo gaaray gudoomiyaha degmada ciidankiisa ka soo gaaray waa la soconnaa laakiin idinku haddaad ku dartiin xusn yaa la dhaawacay laakiin waxba looma qaban xusn waxa la soconnaa in gudoomiyaha degmada gudoomiyaha degmada wada jir ka hadlaysid waxa uu sheegay miidiyaha amni darrada ka jirta degmada mas'uuliyiin dawladda ka tirsan inay ku lug leedahay al-shabaab xataa asagu dusha ka basay la weydiiyay taas annaga ma ogin qofka mugsoonta hadii warkiisa qaatay in la weydiiyay yaa waa in la yiraahdo annagu ma hayna taasi haduu yiraahdo mas'uulka waxa ku hadlo waxba u dhaleeli karaa oo xilli la jooga lama joogo xilli qofka la aamusay jiro la dhihi jiray hadda ma kartid talabada idaacada xorriyada ay leeyihiin waa loo ogol yahay xorriyadooda laakiin haddana idaacada waxa laga baahan yahay
inay noqon mid bulshada Soomaaliyeed dhibaato ku abuuraysa inay noqoto bulshada Soomaaliyeed mid dejinaysa waxaan ognahay idaacadaha qaar inay ka shaqeeyaan amba raadsadaan dadka dhibaato wadayaasha ah ay u danaynayaan amba la shaqeeyaan sometimes la dhihi karo dadka dhib wadayaasha ah idaacaddu waxaa la rabaa inay ummadda ka barbaariso u sheegto ka celiso suxufiga waynu ogyahay ama milkiilo waynu ogyahay inay idaacaddiisa ay leedahay lesson inay idaacaddiisa leedahay xuquuq inay madaxda dowladda ku leeyihiin xuquuq inuu asiga ku leeyahay xuquuq waa in taxgelin samaysaa laakiin idaacaddu hadday 24 saac ka shaqeyso in ummadda kiciso amba kooda xun wareysi ku samayso oo kayf fiican ay ka cararto waxay noqonaysaa wada shaqeynta in xumaat idaacadda waxaa laga rabaa wasaaradda boostada isgaarsiinta hala shaqeyso hana ka dayso idaacadaha qaaranka hadlaya maaha idaacadaho dhan maaha 20 sano idaacadii wadan ka dhasheen qaar baa 24 saac farta lagu taagaa oo ku dhaay anaga farta lagu taagaa laguma taagee adiga aaminsan inaad lagu taagaa sababta waxaad sameynaysiin inaad ogtiin maxaa idaacadaha kale wadanka jira farta lagu taagi waayo wax looga qaban waayo oo dhibaato loo qabsan waayo oo adiga lagu dacweeyaa macnaha adiga miyaa runta sheega oo kuwa kale miyaa beenta sheega ma aha waxa way xuquuq leedahay wadankaaga waa la ogol yahay xuquuq inay codku leeyihiin xorriyo waa waxa loogu talagalay waa waxa wadan ku socda waay laakiin haddana waa inaad garab qabataa la socotaa shacabkaaga inuu nabadda kaaga baahan yahay waata haye waxaan ku dari lahaa walaalkay wuxuu sheegay in oo horta hore anaga waxaan ka hadlaynaa in aan wax saxno haye anaga dowlad mucaarad kuma ihin siyaasadda inaan gudaha usii galno ma rabno aniga kulley gaar ahaan nin meediyahan ahay dhexdhexaadna waa ka ahay laakiin waxaa muhiim ah waxa saxda in la sheego si ay wax u saxmaan marka taas aan ka hadlaynaa walaalka dhowr jeer wuxuu leeyay in la qaato anaga idaacadaha lokaalka aan nahay sidaba dowlad hadaa maqasho waa dhurwa shacabka inuu cuna rabo meediyan waa mid ka celcelinaya waaye anaga dowladda markay dhibaato badan iyo handaado badan nabad sugidii marba inooga timid waxaa la yidhi leysin in la qaato waaye leysin aan qaadan lacag baan ku bixinay leysin sharci ah oo dowladda ka sharciyeysan ayaan leenahay oo dowladda ay nagu og tahay nabadaana ka shaqeyna anaga laakiin walaalkay ma aqaan hadduu nabadda u yaqaano inaan qaladaadka dowladda la sheegin nabadda hadduu saas u yaqaano ma sheegin laakiin anaga waxaan ka laakiin dad shaqeynaa caqabad ku ah nabadda haddaad waraysataan oo dhibaato keenayo ka hadlaa isaga wadanka waaba laba qaybood Haye. wadanka waa al-shabaab iyo dowladda haye cid kale ma jirto al-shabaab raadiyooda ka hadlaan dadka dowladdana waxay ka si babliga u hadlaan intaas marka warka waa laga qaataa dad u dhexeeya oon ahayn waa kuwe. qolada cadowga Noo sheeg. oon ahayn qolada dowladda Haye. qolo dhexaysaa jirta noo sheeg kuwaas. qolada socda qolada 20 sano Haye. samaystaan idaacadaha kala duwan la haye yiraahdo oo fawdada ka taliya dhibaato oo aan nabadan ugu jirin oo nabadan ugu jira Haye. qaarkood Haye. maan idaacadda dhamma Haye. qaarkood kuwaas waa kuwa 24 boonbooni waxa aan jirin ma aha kuwa sheega wanaagga ma aha waa kuwa boonbooni waxaan jira uma danaynayaan shacabkii uma danaynayaan dowladdii waxay u danaynayaan oo gacan hoose ku wadaan ay ku taageerayaan qolada dowladda kasoo jeeda ujeedadooda maxay tahay waxay nabadii horta nabadda shacabka iskale dowladdana ma laho umadkaas nabaddu shacabka iskale danayna u tahay waa in nabadda shacabka la ogaadaa inoonan madaxweynahan lahayn golaha wasiiradan lahayn shacabka inay iska leeyihin nabaddu siyaasadda iyo nabaddana iyaa la isku beegay haye horta hore walaalkay soo sheegay horta waa wax qaldan waaye annaga dee markaan nahay media markaan nahay cabdiqaasin laga soo bilaabo cabdiqaasin madaxweyne u ahay laga soo bilaabo ilaa had dirtaan oo madaxweyne sheekh shariif uu madaxweyne yahay dhibaatada media ugu badan haysta waxa waaye ma hadli kartid aniga waxaan raba aniga dowlad ma soo noqdo maanta aniga waxaan raba sheeg cabdiqaasin saas nagu yiri cabdullahi saas nagu yiri sheekh shariif saas nagu yiri okay barnaamijka ka weyn oo kale muxuu yahay markaad barnaamijka kale oo soomaalida taagan oo weligeed aan dhammaanayn wuxuu yahay dowladda waxaad moodaa ninkii maanta madaxweyne laga soo dhigo oo dowladda madaxweyne looga soo dhigo soomaaliya waxaad moodaa dadka qaraabadiisa ama ehelkiisa waxaad moodaa in ay dowladda leeyihiin shacabkii soomaaliyeed dowladdan maanta dee nadaraa madaxweyne laga dhigo soomaaliyad madaxweyne u tahay qof gaar madaxweyne u tahay ma lahan waana lagu dhalili karaa waana lagu ammaani karaa dowladda familkaagana ma laha gobolka ka timidna ma laha dowladda soomaalida iskale annaga dhibaatada media aan ku baranaa waxaa ka mid ah madaxweyne kastoo yimid oo soomaaliya loo soo doortay markaad dhibaatada dowladda ama aad wax ka hadashid nin familka ama gobolka oo madaxweynahaas ka yimid dad ka tirsan dhan waxay uqaadaan calaadi u qaadaan mediyahaas waxay leeyihiin telefishan hebel ama raadiyo hebel cadow waaye dowladda kasoo horjeedaa ma dhahayaan war shalay dowladdii hore saanay ku ahayd oo waxaanay sheegaysay maantana dowladdan saasna sheegaysaa shalay waa farxaysay maanta dowladdii adaa soo noqdo waa tahay cabdimaalig aad baa waa dhibaato cusub oo soo korortay jenaraal falco ugu dambeyntii maadaama aad tahay khabiir dhinaca ciidamada janalna ah
maxaa tala oo aad dowladda usoo jeedinaysaa waayo dowlad kale hadda ma hayno waa inaan saxnaa dowladda kumeel gaarka amniga haddii dhaliil jirto waa inaan wax ka qabanaa oo tala siinaa marka talada aad siinayso dowladda maxay tahay haddii aan ka gudubno way qaldan tahay waxaasay ku qaldantahay okay horta talada koobaad aan siinaayo waa inay jirtaa kala sarreyn talada koobaad oon siinaayo madaxweynaha markuu soo baxaayo amaba aadayo wuxuu farxad ahaan u raadiaa inuu meelaha ay ka xoreeyeen shabaab inuu tago laakiin securitykiisa laftiisa khatar ah markii hal bazuuko lagu soo tuuro ayay ku dhamaan karaan dadkao dhan marka horta kow talada aan siinaayo waxawaaye madaxweynaha war waa ninkii ugu dambeeyey hadalka ugu dambeeyana nin kale waa isaga inuu bal horta dib usu dhigo kow waxaa kaloo dhihi lahaa inuusan hadday wax dhacaan inuusan degdegin ousan hadlin ou adeegsado prime ministerka iyo wasiiradiisa iyo ciidamadii laakiin hadduu isaga bilaabo waxa waaye waxaan fiicnayn midda saddexaad waxaan dhihi lahaa oo idinka journalistayaasha idin dhihi lahaa waxaa loo baahan yahay annaka dawladda inaan saxnaan rabnaa ma aan inaan dawladda diidannahay inaan saxnaan rabnaa inaan dhaliilahooda u sheegnaan rabnaa inaan wixii aan ka sixi karno o dhan u gudbinaan rabnaa laakiin haddii meesha lala soo istaago nin la dilay lama dilin nin dhahayo waxaas ceeb waay waa inaan objective ahaanaa generaal aad baa umahadsan tahay daqiiqad wax ka yaraan ku siinaya adigana daqiiqad wax ka yar maxaa talaa usoo jeedinaysaa waxaan talo usoo jeedinayaa inuu ilaahay unaxariisto intii dhimatay dowladda sharafta leh waxaan u sheegayaa oon ku taageerayaa inay hawsheeda sii laba laabto ummadii wax u qabato horumar gaarsiiso saxaafadda inta dhimanna ay si wanaagsan ula dhaqanta maxaa ku talinaysa anigu waxaan ku talin lahay sida adduunka waxa waaye markii dhib weyn oo dhaco oo dowladda ay waxba ka qaban weysa dhibaato waddan ka jirto in is-casisho ani marka waxaan qabaa fikir ah sheekh shariif iyo dowladdiisa in is-casilaan oo jaanis siiyaan ummadda kaloo ka dambaysa inay wax qaban karaan in kale in jaanis loo siiyaan laakiin 3 bilood baaba ka dhiman dowladda dhan maya yani waxaan qabaa inay 3 bilood ay soo noqon kadib waa tahay aad iyo aad baad umahadsantihiin daawadayaal barnaamijkii xog waran toddobaadkan oo aynu kaga hadlaynay dhinaca ammaanka magaalada muqdisho xilligan waa sidee intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaa igala qayb qaatay oo stuudiyaha ila fadhiya korneyl cabdulaahi cabdi maxamed dulle oo kamid ahaa saraakiishii sare ee ciidanka nabad sugidda soomaaliya waxaa sidoo kale stuudiyaha ila fadhiya cabdimaalig yuusuf maxamuud oo ah maamulaha guud ee shabeelle media oo ka kooban raadiyo telefishin iyo website xaruntoodana tahay magaalada muqdisho qadka telefoonka magaalada london waxaa uga qayb qaatay generaal cusmaan falco oo kamid ah saraakiishii ciidamada Soomaaliya khibrad ballaaran u leh dhinaca ammaanka aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin aad baad u mahadsantahay korneel daawadayaal barnaamijku waa naga inta aan mar kale kulmayno waa anigoo nadaara oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo farsamadii AJ wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh